oo lama celin karo qof kasta waqtiga uu dhimanayo way qoran tahay sifada uu ku dhimanayana ilaahay baa qoray ilaahay baa xukmay marka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dambigiisa dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannada firdawsa ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ehelkiisii inuu wax khayr badan ugu bedelo annakana uusan gadaashiisna fidnaynin ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay in uu maaragtay geeyo jannada firdawsa hadduu ilaahay yiraaho dambigiisana uu dhaafo gacan ka gardaran oo xaq darro ah ayaa dishay kuwa dhaawacanna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo intaas ka sokow anugu injineer yariisow saaxiib baan ahayn waana isla soo shaqaynay shaqooyin badan baan soo wada qabanay shaqada ugu weyn waxay ahayd markaan aas-aasnay ururkii la dhihi jiray Somali Concern Group oo aad wadankan runtii u halgamay sidii wadankan uu dowladnimadiisa u soo ceshan lahaa asaga ayaa u dooranay inuu noqdo gudoomiye sababtoo wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan oo dadka isku wadi kara dadka la socon kara aan khilaaf uusan ka imaanayn buu ahaa sidaas awgeed ayaan marka asaga ugu dooranay inuu Somali Concern Group uu madax ka noqdo Somali Concern Groupna waad ogeydeen halganka ay soo gashay tan iyo wadanka markii la soo galay ilaa laga xoreeyo oo dawlad cusub laga dhiso door weyn bay ku lahayd Somali Concern Group marka injineerku ma ahaynin uu siyaasadda ku soo booday wuxuu ahaa nin maaragtay door weyn jiritaanka Soomaalinimada iyo dawladnimada hadda aan ku naaloonayno door weyn ka soo qaatay ayuu ahaa intii dawladda uu ku biiran dhowr jeer buu wuxuu noqday wasiirka lacagta ayuu wuxuu noqday dawladdii Sheekh Shariif ugu horeysay wuxuu noqday haddana wasiirka informationka haddana wuxuu noqday wasiirka mar labaad buu wasiirka informationka ku soo noqday waad garan kartiin marka shaqooyinkaas uu ku soo noqday kala duwan markii dambena wuxuu noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho buu ahaa nin dabeecad wanaagsan dad isku wadid leh aqoon leh maamul yaqaan ayuu ahaa marka meesha uu ka baxay waa meel garab weyn oo ka go'ay dawladnimada Soomaaliya garab weyn oo ka go'ay way laakiin waxaan rajaynaynaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed ay ka kabato dilkan ku socdo oo nin doorka laga dilahayo in ay ka kabato oo markasta ay soo saarto dad maaragtay wadanka u danqanaya shacabkooda u danqanaya jecel wadankooda shacabkooda jecel injineer yariisow dadka lagu safeeyo ahaa shacabkana inuu jecel yahay dalkana jecel yahay dadkana jecel yahay ayuu ahaa marka shaqadaasan isla soo qabanay iyo aqoontaasan u leeyahay maaragtay aad baan ugu farxay markii duqa magaalada laga dhigay dhowr jeer oo arkayna talana waan siiyay waana ku amaanaa meesha uu joogo ku amaanaa marka waxaan rajaynayaa maaragtay garabkaas naga go'ay in ilaahay noo buuxiyo noo waqtina noo dhayo asagana inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo ilmihiisana maaragtay inuu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo waa wada dhimanaynaa dariiq loo wada socdo way qof waarahaya ma jiro waa la kala horeeyaa qofba mar buu dhimanaya waa la kala horeeyaa geerida kala xanuun badan oo sidoo qofka u dhinto ayaa kala xanuun badan marka nin caafimaad qaba oo shalay shaqo tagay oo haddana la dilay waa ka xanuun badan tahay nin intuu jiraday oo muddo jirana haddana iska geeriyooday waa ka xanuun badan tahay marka xanuunkaas ziyaadada ah ayay leedahay iyo meesha uu ka baxay oo ay adag tahay daboolkeeda in la daboolo طبعا shacabka Soomaalidu waxa la rabaa inay ku baraarugaan dadkan layna haya inaan isweydiina loo baahan yahay shabaab ma diin bay ku socdaan mase diin la'aan bay ku socdaan shabaab diin ay maalan oo ay diin ku socdaan ma jirto diin la'aan bay ku socdaan dhiigii ilaahay uu xaaraantinimeeyay in la daadiyo xataa gaal sabab loo dili karo ma jiro ayay dadkii Soomaalida ahaa bay ku soo jeesteen waxay leeyihiin dagaal baan kula jirnaa gaalo shacabka Soomaalida dhan miyaa wada gaala marka shacabka Soomaalida waa inay ogaadaan shabaab in ayna ahayn wax diin ku socda balse hadda way ka dareen oo waxay u soo jeesteen maafiyadii Talyaaniga ee dadka tujaarta alaaluushka ka qaadi jirtay u soo bedeleen dogtiin magaalada Muqdisho dadka ganacsatada ah iyo dadka shaqeeya oo dhan laaluush bay ka qaadaan baad waan ku dilaynaa haddii kala lacagtaas dib hadduusan dhiibinna waa dilahayaan ilaahay baa wax dili kara laakiin cabsidii baa dadkii baa wadnihii go'ay
in marka dadkii laaluush bay dhiibayeen marka waxay noqdeen maafiya ku dhex nool bulshadii ku dhex nool oo dadkii baadaysay noqotay marka shacabka Soomaalida guud ahaan gaar ahaan shacabka reer Muqdisho waxaa la rabaa marka war waxaan ma iska celin karnaa mise iskama celin karno shaki kuma jiro inaan iska celin karno shaki kuma jiro inaan sooqa qaban karno shaki kuma jiro waa haddaan ka shaqeyno oon tashano oo dadkan inaan iska qabano oo siday noola dagaalamaan waa cadowna iska celis buu wax ku leeyahay inaan iska celino inay noqoto waxaan kula talinayaa marka shacabka Soomaalida in ay meel uga soo wada jeestaan shabaab qabiil ma laha oo diin ma laha oo daris ma laha oo qaraabo ma laha oo deegaan ma laha ummadii bay baabi'inayaan qarax kasta ay sameeyaan waxay ku dilaan dad Soomaaliya oo waxba galabsan bay ku dilaan dad Soomaaliya oo siyaasi uma jeedaan dad Soomaaliya oo siyaasad ku jirin dad Soomaaliya oo ganacsata dad Soomaaliya oo masaajidada fadhiya dad Soomaaliya ah oo hoteello ku jiro iska jiifa dad Soomaaliya ah oo wax dambi ay galeen ay dilhayaan dadkan marka waa inaan u tashanaa siday noogu tashteen waa inaan u tashanaa waa inaan kala dagaalanaa meel kasta ay joogaan shacabka waa inuu isku tashtaa in uu la dagaalamo degmo kasta waa inay mas'uuliyaddeeda qaadaa inay la dagaalanto dadkan oo wadanka laga ceriyo oo la baabiyo diin malaha waa maafiyadii Talyaaniga ee dili jirtay dadka Talyaaniga tujaarta lacagta ka qaadan jirtay extortion ku sameyn jirtay waa maafiyadii America deganaan jirtay ku dagaalami jirtay drugska waa drugs bay gadaan drugs bay qaybiyaan sun bay qaybiyaan soo ma garan waa been waxa idin sheegayaan diin ay leeyihiin iyo diin ay hays allow yaa ogaado hoos ahaan yaa u ogaada waxa ay sameeyaan waxa ay ku kacaan yaa ogaada shanta waqti inayna tukan baa laga yaabaa sababtoo dhiig bay faraha ku wada wataan dhiig bay miciyaha ku wada wataan marka inayna shanta waqti tukan garar been ah يا عبور قابر نجس أي سكو أي ماركتي أي حتى ذات كان الدين ملها يعني لقى عبسن إلهي بها وحد لا هلا لا دقالة ملك استيجوجان وإلا لا دقالة ما شعب كالصومالي دو واسكعلين كرا والله ولا اسكعلين كرا غير مقدشو واسكعلين كرا لكن غير مقدشو وحاكم مقطع ضعف باكم مقطع عبسي باكم مقطع والإلهي بها وحد لا عبسنين اسكعلين لأن هاي ذات كان هالاسكعلين صابتوا أدادا اسكعلين دادن dagaalkooda ka qayb gelin berri baa adoo maqaayad fadhiya ay qarxina wad ku dhimanaysaa maxay ku taraysaa berri ayaa dhimanaysaa adoo maqaayad iska fadhiya oo shaah iska cabahaya ayay qarax ay geysanayaan wadna ku dhimanaysaa adoo baabuur iska wado jidka iska socda ayaa qarax ay geysanayaan markaas aad ku dhimanaysaa marka waxa fiican inaan ka hortagno waxa soo dhan oo ka hortagno oo la dagaalanno oo haddaan dhimanaynana annagoo la dagaalamayna inaan dhimanno oo ay dagaal naga dhaxeeyo laakiin inta cabsano an cabsidii naga badato kaduudsano guryaheena kaduustan haddana guryaheena qaraxii noogu soo goday ilmihii iyo haweenkii uu naga dilo iyo nindoorkii wax la qaadan kara ma shacabku ha tashto dagaalkan ha ka qayb galo dagaal cusub waa in lagu qaadaa shabaab waa mahadsantiin assalaamu calaykum